السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا برامج كارمها بلشدة تيفيغا ارتين او تضبات كستاد كداوتان برامج كارمها بلشدة alaabo martida markaas leenahay bulshada waxa qabadayay ku soo kordhisay ama bulshada markaas magacay ku leeyihiin ayaan ku soo casuunaa barnaamijka arrimaha bulshada barnaamijkana waxa idin la socodsiinaysaa anigoo Ansal Xuseen Qordheere sidoo kale waxa martiya gabadh dabcan aad u daayar oo productiyo badan soo saarta magaceedana lagu magacaabo Cabdisalaam ku soo dhawow barnaamijka arrimaha bulshada. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وهاي شكرا aad baad u mahadsan tahay Cabdisalaam iyo sida quruxda badan aad barnaamijkaada nagala qayb qaadanayso iyo naga ajiibtay waliba inaan kugu soo marti qaadno dabcan waxa tahay dadka aadka u tirada yar ee bulshada wax ku soo kordhiya intaana barnaamijka ama su'aalaha ama inta badan aan u guda gelin bal Cabdisalaam yeeta isbar dadkaba bulshada inaad isbartido taariikh nololeedkaaga iyo waliba waxbarashadaadii aad u kormarba waayahay aad baad u mahadsan tahay taariikh nololeedkayga haddii aan ka bilaabo waad ii jeedaan Cabdisalaam baa leedahaa xaas ayaan ahay laba caruur ayaan leeyahay alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan ku noolahay Kenya khaasatan Nairobi xaafadda Islii waxbarashadeedii ilaa primary secondary jaamacadda inta ayaan ku dhamay alxamdulilah waxyaalaha aan bartay waxaa ka mid ah business administration accounting and finance arrimaha bulshada sida social development family conflict management computerized accounting diinta alxamdulilah meel fiican ilaahay waa iga gaarsiiyey taasna waxaa ugu mahadcelinaya waalidiinteyda oo dad culimo ah iguna soo barbaariyey madaawaadka iyo dhir kale fara badan ilaa muddo hadda sanadkii 10aad baa ii socda anoo yar markaan secondary dhameeyayba waan bilaabay hawsha alxamdulilah waagaag dabcan taariikhda nololeedkaada aad waliba u soo koobtay dadka dadweynaha inay ka bogteen ayaan rajeynayaa maanta waxa ugu badan aan ka hadlayno waa productiga la soo saartay waliba saliid ah saliidan bal su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo saliidan maxay tahay bal dadka wax u faahfaahay maxaa kugu dhaliyay saliida inaad sameysay productiga aad soo saarteen alxamdulilah saliidan waxay taraysaa ama waxay tahay haddii aan guda galo saliidan horta waxyaalo badan oo la soo koobi karin ay daawo u tahay haba ugu horeyso timaha markaan leeyahay rag iyo dumarba way ka siman yihiin waxaa kale ay tinta ay saliidan ay daawo u tahay timaha daadanaya timaha jajabaya timaha isku dhegdhegayo oo markii la shalayo qofkii uuna shaleyn karin timaha soo bixi waayay madax xanuunka caajiska iyo waxyaalo badan oo runtii meeshan aan ku soo koobi karin ayay daawo u tahay sidoo kale saliidan dabcan waxay si qaas u sii tahay bidaarta iyo waliba raggan ay isticmaali karaan saliidan maxaad markii aad sameynaysay ama abuurkeeda aad keenaysay maxaad dad badan oo timuhu ka daadanayeen bad aragtay mise inta badan raggan hadda timaha soo beeranaya ee dhakhaatiirta waaweyn aadaya baa kugu dhaliyay horta su'aal fiican aad baa u mahadsan tahay lama dhihi karo oo saliidan bidaar waaye ama bidaartii daaweynaysaa balse waxay ka hortagaysaa wixii madaxa dhibaato gaadhay oo dhanba ha noqoto tinta agoolka ku dhashay ama dandruff wax loo yaqaano ama Soomaalida luqadooda way kala yar duwan tahay ama taxabta waxa loo yaqaano ama agoolka igumana dhalinin dabcan rag un hadda turki aadayo bidaarta soo sameysanaya ama dumar ay tintii ka haaday balse waxyaalo badan oo kala duwan baan sameynayay marka waxyaalihii testingkiisaan u waday tijaabadii tan ayaa waxay soo baxday midii markaas aan isdhihi karo nafteedana way anfacday ummadana way anfacday waxaana igu dhaliyay ana u baahday nafsadeeda u baahatay nafsadeedii markaan u sameeyo aan arkay aniga muhiimadii aan ka rabay inay iga daaweysay waxa ku xigtay markaa inaan dadka u soo bandhigo wahagaag saliidan markaad samaysay adiga naf ahaantaada iskaga bilowday markii adiga ay ku hirgasho ku shaqeysay aad bulshada u soo dhigtay sida adiga ay kugu shaqeysay ma jiraan dad ay ugu shaqeysay oo iyagana sidii aad islahayd waad ka rabtay oo adiga way kugu shaqeysay in dadkaas ugu shaqeysay
اوكي صح طبعا صح way jirtaa ani markii ii shaqaysay kaliya ma marsanin oo markaan samaystay dadkii ila joogay waad ogtahay dad badan dumar badan baa la isla joogaa waa la wada marsaday dadkii markaa intii aniga aan ka rabay ka badan ayay ka dheefeen markii ay ka dheefeen dadkii kale oo markaas beec ahaan ay u gaadhay dabcan sidoo ilaahay la ogyahay baana ka codsaday inay iiga soo jawaabaan duco iyo waxaan ka helay oon dhiirigelin horay inaan u sii socdo baahina loo qabo dabcan si fiican waxaa jirto saliidda markii aad soo saaraysay timahaad u soo saartay waqtigaas dabcan sidoo kale hadda rag iyo dumar kale dabcan way isticmaalaan sidaad iiga dhawaajisay saliidan marka hore ma dumarka kaliya u soo saartay iyo tintaa googo'aysa mise rag iyo dumarba waxay go'aankaaga waxay ahayd inay isticmaalaan go'aankaygu waxay ahayd rag iyo dumarba inay isticmaalaan sababtoo inta badan dumarku naftooda bay ka warhayaan waxay u maleynayaan dhibkeena iyaga bas inay haysato raggana waxay u maleynayaan tinteena iyaga bas inay ka daadanayso laakiin waa wax guud oo common ka dhaxeeya rag iyo dumarkaba xagga tinta marka uma samaynin dumarka bas inay anfacdo rag iyo dumarba isku siinay oo anfacdo ayaan ugu sameeyay ragga inta badan hadda waxa bidaarta aad uga cabta inay rag yihiin ma filayaan in ragga bidaartaas aad kuga cabta wax faa'iido ama tintii dad ay u soo saarto bidaar laha oo isla hayay Turkiga aad ama meel kale tinta ka soo beero ay uga baaqdeen alxamdulillah way jiraan dad iyagoo ka baqaaya tintii durbabada inay si bidayso oo tintii ay u soo buuxsantay iyo rag iyagana ku fikirayay bal maxaad ka samaysan arintan markay marsadeena unugyadii timihii xidhxidhmay u furfurmay dabcan xaad ayaa u soo baxday xaadana waxaan ilaahay ka rajeynayaa inay ku xigto iyadoo adkaatay insha Allah wahagay cabdisalaam waxaan ku weydiinayaa tinta bidaarta dabcan khibrad badan baad soo samaysay saliidan waa wax waqti badan ayaad daraasaad ku sameynaysay rag iyo dumarka bidaarta miyay ka siman yihiin mise dumarkana laftigooda way ku jiraan anigu inkastoo weli arkin qof dumar oo bidaar leh waa su'aal fiican dabcan ragga un baa la yaqiinay inay bidaarta gasho oo de wixii qofku markuu 60 sano gaadho wixii ka dambeeya inay ama halkan hore ay ka gasho ama gadaal inay ka gasho cabasho dumar ma jirin laakiin zamanadan dhexe cabasho dumar oo badan baa jirto isku sina rag iyo dumarka bidaar uma galayso dumarka kale waxay u badan yihiin dhinaca bidixda khaasatan aad uga bidaysa marka dad awalba dumarka rag way ka tin badnaayeen wayna ka tima dhaadheerayeen dhaqso inay dareemi waayeen ayaa macquul ah laakiin by the time ay dareemaan intan markay gasho waxa ku soo xigta marka inay foodi soo aado marka aad xaad ay noqoto say u joogan marka ay waji weyn ay yeeshaan marka rag iyo dumarba way ka siman tahay laakiin dumarka waxa noo qarinaya ilaahay duuna xijaabay alxamdulillah laga dareemay gabadha soo xijaabantay inay bidaar leedahay kala ciidan aad weyn marka bidaarta ma noocyo kala duwan bay leedahay oo noocyo badan oo bay leedahay oo rag iyo dumarka bay ugu dhacdo saad ii sheegtay dhinacay ka soo gashaa noocyadiidaas maxay ku kala duwan yihiin dabcan noocyo way leedahay noocyo waxaa jirta dad la dhihi karo dhaxal bay u heleen oo markii cabaar joogaan qofkii uu weynaado iyo qof maxaan ku dhahaayay sidoo u joogay markuu da gaadho ay galayso da awalba Soomaaliya hadaan hal arki jiray bidaar waxaa jirta bidaar lama dhahayo laakiin waxa la dhihi karaa waa nooc mina environmentiga ama nafaqa daro ama qof jirkiisa xanuun ku soo kordhay taasoo ah inay tintiina dhaqsaba inay iska dhamaado oo taasna lama dhihi karo waa bidaar laakiin waxa la dhihi karaa waa wax dawo u baahan qofkii haduu iska gaadhana alxamdulillah ay ka dhamaanayso waxa kale jirto yaani waqtiyadii hore maadaaba waqtigii hore dadku ay Soomaaliya hatta ninka ku sugnaayeen ama waqtigii hore rag iyo dumar tinta lama daryeeli jirin saliidahan hadda la kala doordooraya leeyahay way hagaajinayaan ama nafaqooyinka cidiba ma inay isticmaali jirin si fiican qof walba wuxuu soo gaaray markaas ayuu marin jiray markaasna tin googo'aysa iyo qof bidaar gashay lama arki jirin hadda waqti xaadirkan maxaa sababaad isleedahay wali waxaad ku sii dartaa saabuuntii oo oomada wax arkaan iskaga dhaqan jiray weyn saabuun waliba saliidii cuntada lagu cuni jiray Soomaaliya ay ismarit qaarkood marin jireen si fiican oomadii waxa lagu dhaqi jiray haddana jajab iyo waxba laga ma caban jirin tintii ba dhamaatay iyo bidaar ba ay gashay maxaa sababay waqti xaadirkan bad isleedahay waqti xaadirkan hadii intii ilaahay uga waafajiyo iyo intii baaritaan sameeyay iyo intii ragii ama dumarkii aan la sheekaystay feedback aan ka helay hadii aan shicibka la qaybsado waxa Kenya awal waxaa la haystay
maxaan ku dhahaa environment wanaagsan cunto tayo leh caano tayo leh dawo tayo leh hadda markaad fiirisid cuntadii tayo ma laha dawadii tayo ma laha environmentigii tayo ma laha raggii hore haddaanba kasoo qaadno qofku markuu 20 jiro ama 25 sano dee beerna uu soo qodi jiray geelna uu ilaalin jiray dhibaato badan oo ku keeni karta stress iyo frustration ma jirin hadda raggii hore waalidkood bay ka dhaxli jireen dhaxalkii oo gabadh doono iyo waad soo ma jirin kan hadda markuu yara ka cawad bariiskii raadi iyo berindii noloshii aaway stresskaas badan ayaa keenaya waxaa keenaya cuntadan kala duwan oo junk food u badan yahay oo tayo lahayn jirkeena wuxuu u baahan yahay nafaqo sababtoo hadda qalbigeena ilaahay soo noo sheegay wuxuu ku nool yahay waxyiga wixii ilaahay samada ka soo dejiyay oo rasuulka ku soo dejiyay kaleey salaatu salaam aan qalbiga ku nooleynayna jirkeena waxaan ku nooleynayna wixii ilaahay nimco oo dhulka ka soo bixiyay nimcadii marka waxaan ka cunaa wax nafaqadiiba laga soo dhameeyay ayaan ka cunaynaa waxa ku sii dheer marka timajarihi markii la aado waxaa lagu xiiranayaa electricity wax loo isticmaalayo iyo xiritaanka badan oo lagu celcelinayo qofkii isagoon isdareemaynin ayaa xadiba horta dhamaanaysa tintiba u gudbaysaa qofkii isagoon is ogeyn baa wuxuu arkaya goor ayba baashiba ay ka beday dumarkii oo kale waxay marsanayaan jilciso ama colors ka dheh waxay ku qalajsanayaan markastoo ay maydhaanba kii lagu qalajinayo kureentadaas badanna waxay keenaysaa inay tintii tayadeedii ay dhimato xididadii timaha soo saarayeenna ay nafaqa daro ay ku rido marka lama soo koobi karo inay yani qaabka hadda bidaartu ay dadka ugu soo degdegayso waa topic aad u weyn oo keligii in laga hadlo u baahan waqti badan dadkan waxaa jiraan dadka qaar raggii waxay tagayeen meelaha raiiska tinta lagu jarto dumarkii sidoo kale ayagana waxay tagayeen saaluunkii tintii loo hagaajinaya marka marmarka qaar waxaa dhacda qofkii in يعني شنلو قف كله كشنليسته أما توال قف كله المتمدح لو غلطي dadka saameyn ma ku sameyn kartaa arrintaas oo kale wallahi waa su'aal aad iyo aad u fiican customer-keygana markay gataan saliid isticmaalaan waxay ka dheefeen iyo waxyaalo wali degdeg oo in helin markay aan wareysto waxyaalaha ciladaha meesha iiga soo baxda oon kala taliye ka mid tahay tusaale shanla iska dhaaf saaluun baha aadinba guriga markaad joogtid waxaa laga rabaa kaliya inaad shanladaada leedahay qof agool ama taxo waxa u taqaana la ayaa ku shalaystay waqtiga ku xigay adeed ku shalaysatid shanladaas way jiran tahay already bacteria-dii ayaa qaaday tawaalkan qofkan uu ku qalajistay adiga lagu qalajinaya biyo kulul laguma maydhin ama lama kaaweedaynin jarmiskii ma dhimanin isla markadaaba timahaaga waxay qaado caafimaad qaba tagtay adoo taxab sida ayaa soo laabatay agoolka marka wuxuu keenayaa madaxii inuu ku cuncuno madaxaas cuncunkaas badan oo cuncunis marka dhidid adiga dhanba inaad dareentid nooc mina xanaaq camal oo isdhaad xagee laga haystaa marka dambana skinka markuu xoqmadii markuu ka bato inay meesha boog noqoto boogtiina marka inay keento tintii inay fuqfuqdo xididadii yaryaraha timihii soo kobcinayay durba inuu gaaro agoolkii marka dhibaatada saaluunka lagala kulmo rag iyo dumarba lama soo koobi kara laakiin wacyigelintii baa ku jira meesha lama oga aad weyn saasay tahay dadku waxay uga badbaadi karaan dabcan qofkii maanta saaluun gabadha hadda u baahan tahay gurigeeday ku samaysan kartaa intay qalabkii soo iibsatay sidoo kale nimanka laftigooda way samaysan karaan saliidan haddaan usoo laabano anagoo soo qabanayno dabcan saliidda inaad dadka xoogaa u faahfaahisid waxyaalahaad ka samaysay iyo qaabka loo kala isticmaalayo dabcan saa hadda ka muuqata laba nooc weeyaan nacam marka waxaan rabaa bal inaad dadka aad u faahfaahisid saliidda inta soo qabateen waayahay aad baad u mahadsan tahay saliidda horta waxay ka kooban tahay 250 mililiter ama rubuc waxa loo yaqaano ay xabadii ka kooban tahay waxa ku soo ran dabcan dhirta kale in la garan waa la macquul laakiin shaygaas madow waa xabasuudadaas midda marka xabasuudadan wadata waxay ka kooban tahay lama soo koobi karo oo de waa cilmi 10 sano aan soo diyaarinayay haddii marka fawaa'ideeda aan sheego ama qaabka loo isticmaalayo fawaa'ideeda horta tan waa dawadii cuslayd waaye oo qofkii wixii ama cuncun ahaa ama caajis ahaa ama madax xanuun ahaa ama tintii soo bixi weysay ama tintii tayadii ka dhamaato khafiif ka noqotay tii daaweyn lahayd waaye qofku wuxuu u marsanayaa marka isbuuci 2 mar isbuuci 2 mar hadduu ka badsado 2 maalin markuu joogo maalin saddexaad intaas in ka badan ma marsan karo waa markaa tantii dawadii saldhigii ahayd oo unugyadii xidhmayna furfuri lahayd oo madaxiina dee nafis
siin lahayd dhaawacii timaha iyo madaxa dareemi lahaana caafimaadin lahayd inta ilaahay ka sokaysa biidni lahayd dadka marka aan bidaarta lena u soo celin lahayd bidaarta waqti badan dabcan qofkii tin ka biday oo dhanba rag iyo dumarba aad weyn laakiin xooga aad u saarno maadaama ay rag ha aad bidaarta ugu badan tahay tinta haday gurto ilaa dhakhtar iyo dhul la aadaan la soo celin karin marka ayaga laftigooda way u soo celinaysaa alxamdulilah haddii ay ku dadaalaan waqti fiican sida loogu talagalayna dabcan way isticmaalaan dabcan haddii aan ku daro qofba wuxuu ku dhahayaa waan gatay dabcan anaga markaan Soomaali markaan nahay wixii markaan maqalno waxaan jecelnahay dhaqso inaan ka war doono soo gadano laakiin markaan gurigii keeno way nagu adagtahay isticmaalkii qofkii wuxuu kugu soo celinaa jawaab dhaqsatee ma dareemine bani aadanka jirkiisa waa kala duwan yahay sida shanteena farood aan u sineen bani aadanku kala duwan yihiin awal waxaad arkaysaa qof timo dhaadheeraad timo jilicsanaa qof timo adkaa sidii ilaahay ku abuuray adigoo og timahaaga awal baa ama qof dhaqso soo baxay baa tahay ama qof ku adkaa baa tahay haddana sidii loogu talagalay haddaa u isticmaali weysid khaladka da'ada iskale qofkii markaa wejisoo dhahdeed isbuuci loo marmarsatay maya 2 isbuuc ku hore ay ugu dambeysay maxaad ka dheefi markaa waxba kama dheefaysi waxna uma qabanayso intana aniga gacanta ku hayay dabcan liina ku sawiranayda laftigeeda nacam tan haddaad iyada laftigeeda faahfaahin ka bixisay tan liinta ay ku sawran tahay waxaan ugu talagalay dabcan tan waa daawadii oo nafaqadii dhanayd waaye 2 jeer ama 3 jeer wixii ka badan isticmaali karin aad weyn oo de markasta nafaqa ma samaysan kartid khaasatan dumarkaaba waxay iska samaystaan ragga ma basta samaysanayaan taas markay dhibaatadii wuxuu qofku dareemay kolba qofka de ilaahay sidoo loo ogyahay dhibkiisa isagaas og markii ka daaweyso wuxuu u baahan yahay markuu qabaysto qofka inuu marsado saliidii caadiga daily useski ahayd tan markaa saliidahan kale oo laga sameeyay chemicalka ama carafta badan isagoo tintii soo daaweynaya haddana wax side effect u keenaya hadduu marsado resultigii la rabay dhaqso qofkii ma helaayo sayna taas u dhicin markaa tanna iyadana laftirkeedu waa daawo laakiin tan bay khafiif ka tahay qofkii markaa tan caadigiisa intuu u marsado iskaga shalaysto ayuu iskaga baxayaa marka waxay ka hortagaysaa saliidihii kale u baahnaan lahaa ay ka hortagaysaa nacam marka saliidan iyada sida tan la iskama dhaqayo oo waqti kasta iyada marka tan isticmaashid yani saliid ahaan baad u isticmaalaysaa aad weyn waa su'aal fiican taas loo marsanay sidii intaad wax yar meesha aad ku shubato dee aad subkinaysid uma marsanaysid midda xabasudada madaxaad ku shubaysaa ood ku masaajeynaysaa masaajkana wuxuu ka saacideynayaa inay saliidii neerfihii ay soo kiciso si fiican ay u gasho taas markaad iska maydhatan tiiliska maydhay macaadi aad u marsatay waad ku shanlaysatay rag iyo dumar qofku dooniba sida saliidaha kale aad u marsato iskaga baxdo unbaad iyadana u marsanaysaa wagaag saliidan waqti intee leeg ayay kugu qaadatay inaad soo saarteeda alxamdulilah markii laga reebo sideedaba dhirta muddada hadda sanadkii 10aad hadda ii socdoon akhrinayo saliida keligeed inaan testingkeedii iyo waxeedo dhammaystiran waxay ugu qaadatay 3 sano 3 sano ayay kugu qaadatay saliidan inaad bulshada u soo bandhigtid oo waqti badan dabcan dad badan ay ka faa'iidanayaan rajinaya kuwa kalena maanta daawada baraan saliidaas iibsadeen ay ka faa'iidi doonaan saliidan qiimaheeda hadda dadka u sheegtay dabcan dadku qofku isweydiinayaan saliidan meeqa la iibiyaa bal qiimaheeda dad sheegtay saliidan qiimaheeda haddaan sheego saan hore u sharaxay waxaan sharaxay 2 saliid labada saliid baan sharaxay labadan saliid markaa af Soomaali waxa la isku dhahaa way isla socdaan sad ma kala gadmayaan ma kala marmayaan tanaan qaadanaya tanaan deynaya ma noqonayso oo markuu dhakhtarkii dawo ku siiyo tan u baan la qaatan ma la qaay ma dhahaysid labada markaa waa laazim inaad isla isticmaasho marka koowaad ruulka koowaad waa taas labadan oo isla socdana waxaa la gadaa 5,000 shilin ama USA dollar wax la dhaho $50 weeyaan marka qofkii u baahan hal saliid oo gooniya ma gadan karo waa laazim inuu isku gato labadii saliidood inta badan daawooyin waxaa jira aan kala harin dabcan daawooyinkan kala harin oo labadoodii hal mar la dhamaysanayay ayay ka mid tahay sidaas waa saliidahan dabcan waqti badan baad gelisay muddo badan kumana productigaaga waxaan u maleynayaa saliidahan wacyigelin badan oo bulshadana waad samaysaa sidaad hore ugu sheegtay saliidan intaad ku guda jirtay wax caqabadaad kala kulantay ma jirtaa wax caqabadoo hadda aan dhihi karo waxaas baa ugu weyn ma jirto alxamdulilah ilaa xad dadka ay garab taagan baa fududeeyey marka caqaba hadda maanta aan sheegi karo oon dhihi karo waxaasa caqaba ah ma jirto laakiin customerka markii la dhaho wixii halaga iibiyo haddana dee wixii cusubood usoo saartay iyo waxaa kaloo kusii cusub online baan ku gadaa marka caqabado waxaa imanaya qofkii
inuu dhaho qaabkeen online ugu gadanayaa lacagta seen kuugu soo dirayaa markaan kuu soo diray haddana adigiiba ku waayana cabsi dadka waxay ku dhahay dadka qaar waxaa jira qofkii aaminayba oo isleeyahay lacagta haddana hadday baxdo ameebad qofkii dib qofka qaar baa wuxuu dhahayaa san hadalladaadii ka dareemay maasha allah qof taqeedaa tahay marka waan ku aaminay sida ugu dhaqsiyaha badan igu soo dir markuu helana saan kaa rajaynay bay noqoto oo ii soo duceynaya iyo qofna deynaan dhaho walaal haddaad cabsanaysid dee maxaan sameeyaa bal waayahay ilaahay dartii oon qofkii isagoo markaa gargariiraya ilaahay dartii sidoo kale waxaa jirto qof markuu lacagtii kuu soo diro kale waqtiyada qaar waxaa jirto qofkii inay ka yara daahdo marka dadkii welwel baa gelaya wax leeyihiin qofkii amuuba isaga lacagta sidoo kula tegay laakiin marka saliidahan tukaamo aad leedahay maad ku iibisaa mise sida sheegto online-ka bis ayaad ku iibisaa saan sheegay online-kan ku iibiyaa uguma talagelin inaan dukaan u fadhiisto taasna waxaa keenaysaa markaa fiirisa hadda adduunkii social mediaga waxaa la gaadhay casri wax kasta wada fadhigaaga fadhisi lagu keenayo qofkii kalena isagoo gurigiisii joogo wuxuu kuu kariyey oo kuu soo saarayo adeega degdega ah marka waxaan u arkay wax online-ka ku soconaya inay tahay dukaan loo baahnayn ama xarun marka oo dhanka online-ka baad ku iibisaa nacam saliidan maanta haddii la dhaho qof yacni dad waxaa jiro haddii maanta loo tago dhahaya aniga maanta saliidan tintiiba ii saartay waatan tintaydi ma jiraan dad saasa haddii aad dhihi lahayd dad soo casuum oo soo kaxee waad wareysan lahayd waan wareysan lahaa oo tinta ay u soo saartayba waad wareysan lahayd haddii hadda loo baahdo oo mar kalena casuumtana waan soo taxaynaa insha allah waa diyaar may insha allah waxaan rajeynayaa waqti iyadoo dadkii ay tintiide kuwii ka go-aysay iyo kuwii bidaarta lahaa haday wadida oo ay tintii usoo baxday inaan halkan aan keeni doono insha allah saliidan dhirta aad ka samaysid ma dhir dalka Kenya dibadiisa kaaga yimaada mise waa Kenya unbaad gudaheeda aad ka heshaa dhirta waa isku dhex jiraan ilaahay dee nimcada meel buu ka soo bixiyey aad weyn wixiina nimcadii inaad barato dee aqoontii buwaagtii la qoray baa ku baraysa marka wixii haddana wadankii ma ka heli karaa mise ma ka heli karo haddana waxay kugu qaadanaysaa muddo dheer inaad ogaato iyadoo kooban marka qaybna wadanka laga helaa qaybna waan dalbaa qaybna waa dalabtaa sidaas markaa saliidii iyadoo dhirteeda dhammaystiran aad ku heshaa ma jiraan barodhagtiyo kale inta maadaama ay sanadkan inta badan maadaama tintii aad xooga saartay oo aad waqti gelisay dad waxaa jiraan sanadadan kimikada dhanka skinka uu isticmaala ama wejigoo kale isku cadeeya inkastoo hadda rag iyo dumarkuba aan u kala saarnayn oo rag iyo dumarka is dhaqaan ma u soo saartay iyada laftigooda alxamdulilah intii horta baaritaanka aan sameynayay waxaan aad iyo aad xooga u saarayay qofka gudihiisa maxaa ka khaldan caafimaadka gudaha natural ahaan fitaaminadiisa caafimaadkiisa gudaha markaad gudihii deed ka dhaqaaloodo unba subagii koro ka soo baxi karaa marka way jiraan xagga skinko kale waan fiiriyey baaritaan badan oo ku sameeyey inta badan waxaa la dry skin iyo oil skin baa ay dhahaan dadka laakiin waa 5 nooc maqaarka 5 nooc qayb rag iyo dumarka ay ka sameeyeen yihiin iyo qayb dumarka la dhihi karo iyaga khaas u tahay xanuunada wajiga ka gaadha laakiin de jaranjarta kolba si u kala sareysa loo maraa markii ilaahay tan haduu noo xasiliyo oo dadkii ilaahay ku anfaco anigana in ilaahay ugu dhawaado waxaad soo sameynaysid waxa fiican wax ilaahay ugu dhawaanayso berde dhibaato dadka hadda uga timaado qofkii dadkeena ku soo dhibsan oo dhihinay tintiida awal inkaar ku dhacday isaan loo dhihin anigana ilaahay u fiicnayd hadda intii iga shay marka tan ay dhahaan alxamdulillah walaal de inta sida hadda wal iigu duceynayo inta hadda wadana de dhahan de walaal waan u baahanahay ducada waad qabtaa nood waxaan dhihi karaa marka alle leeyahay tan way u shaqaysay aniga maadaama ii shaqaysay skinkiina de wixii aniga aan u baahnaa qayb kamid aan ka sal gaaray dan waxaan dhahayaa de waxaan baan bal anigu ku dhibaatooday waan ka sal gaaray bal idinkana ila arka marka way ku jirtaa blanka insha Allah hadii ilaahay nafs nagu daayo sidoo kale waxaa jiraan waxyaalo badan oo sida ka dhawaajiyay oo kale daawooyinka la isku dhaqo waxaa jiraan daawooyin dad wajiga haaro ku leh aad haarahaas iyaga wax daawo ah ama saliid xataa la marinayo ma soo saartay waayahay haddii ummaddu wax yaraan u sheego horta kareem markii la dhahayo lotion markasta waxaa ka fiican saliida markaa waxay gelaysaa jirkay gelaysaa haarahana qofku wuxuu u maleeyaa inuu ka qaadayo waxyaalahan la marsanayo waxyaalahan la marsanayo cimri degdeg iyo skinkaaga dhaqso dhamaanaya ay marka haarihii ay u soo badanayaan laakiin 80% waa wax gudahaaga ka bilaabmay waaye aniga kula hadlay markii ugu horeysay hooyo noqday reero muraad ma ihi waan iska socon jiray marun baan isfiiriyo waxaan dhahay maxaa dhacay
markaasna kuma mashquulin wax la ismarmariyo waxaan ku mashquulay oon gudahayga maxaa ka khaldan within short time waqti yar gudaheedna waxaan arkay wixii iska tegay qofka Soomaaliga hadda kula talisid iska dhaaf waxa la marsado laakiin waxaan cuno waxaan samee way ku adag tahay hadii la dhahdii laakiin waxaas intaasoo kunbu joogaa marso hadduu kaa tegaya ma dhahaya maxaa ka dambeeya maxaa dhicaya wuxuu dhahaya haye taasaa keenaysa markaa kolba wax baan ku baroobeynayna waxaana de waa maqaarkana ma laha maxaan ku dhahaye dee ma la dhihi karo wuxuu leeyahay waqti dheer adiga haddaadan waqti dheer siinin isaga waqti dheer kuma siinaayo taxadarkii baa yar markaa haddana inta badan waxaad u malaysaa bulshada hadday noqoto weliba dumarka markii daawooyin la noqoto ama waxyaalaha herbalka inta badan dadka aad uma isticmaalaan waxyaalihii hore kimikada ahaa waxaad u malaynaysaa qofkii inuu wejigiisa iyo jirkiisa uu marinayo laakiin gudihii iyo wixii uu markaa cunayo una ka fikirayn marka dabcan markuu qofkii saas oo kale uu sameeyo cuntadii uu daawadii wixii uu isticmaalayo korkii marinayo cuntadii iyo wixii jirka nafaqada ahayna uunan ku dadaalin dhibaato buu u keeni kartaa waan filayaa aada weyn horta haaraha waqtigii hore haddaan fiirino waqtigii hore dumarka inta badan nolosha la tacaalo oo walbahaarka badan unbaa lagu arki jiray iyo dumarka inta badan hormoolkooga isbedelo waqti yar kadibna waa iska tegi jiray tan hadda laakiin mid tagta maaha sababtoo ah dee lama dhihi karo stresska jira ayaa keenay laakiin dawada la marsanayo ayaa qayb weyn 80% ka qayb qaadanaysa in skinka dhinto skinka markuu dhintana heer waxaad gaaraysaa dhakhtarku ku dhaho skinka waan fiiqaya waan dhaqayaa aada weyn waxagaag waxaan ku guda jirnaa dabcan barnaamijkii arrimaha bulshada ee TV-ga RTN iyo weliba oo ay maanta marti ugu tahay Umu Cabdisalaam oo barodhigtigan aadka u quruxda badan soo bandhigtay dabcan waa saliidaasna waxa ay aad muhiim ugu tahay timaha aad ku jajabaya ay madaxa ku saabsan tahay weliba sidoo kale ragga bidaarta leh aad bay u caawinaysaa iyo dumarka bidaarta lehba haddii ay saliidan gataan oo ay ka faa'iideystaan waxaan rajeynayaa waxyaalo intaas ka badan oo dadka dabcan saliidan iyo saliido kale oo inaad usoo wadid ay ka faa'iideysan doonaan Umu Cabdisalaam waxaan ku weydiinayaa dabcan adigu dalkan Kenya waliba gaar ahaan magaalada Nairobi baad ku sugan tahay dadkan ku sugnayn wadankan Kenya sideed u gaarsiisaa saliidan inay ka faa'iideystaan waa su'aal aad u wanaagsan waxaan weydiiyaa markay soo dalbadaan lambar la igala soo xiriiray ayaa jira marka qofkii ama isoo wici ama internetka iga soo raadin WhatsApp-ka marka qofkii ii sheego baahidiisa wadanku joogana ii sheego ayaa waxaan weydiinayaa marka full address ciwaankiisa oo sax ah oo hal ereyna ka khaldanayn ciwaankii markuu ii soo diro kuwa qaarkood by M-Pesa markaas lacagta ku bixinayaan delivery oo ku jiraan ugu darayaa intaas waa beeci lagu keeni lahaa qofkii markuu lacagtii ii soo diro aniga saliidii waxaan u saarayaa boostada rasiidkii marka lacagtii aan ku bixiyay iyo timeka estimate-ka qaadanayso soor baan uga qaadayaa waan u dirayaa qofka marka isagu niyadiisa degantahay waxay sugaya saas baa marka ku gaarsiyaa gobolada gudaha oo kale gawaarida ayaa u qaadaan sida wadanada dariska oo kale sida Zambia ama Tanzania ama Uganda cargoga ama gawaarida inta badan tagta ayaan u saaraa marka ilaa hadda wax aqaba ah meelo oo sida South Africa oo kale baa la dhihi karaa ilaa xad customerkiina way badan yihiin qaabkay ku helahayeen wali maadan yar adag tahay marka dhahay ciwaan soo dirsada qofkii hal meel ma degan ayagii baa qax ku jiro aad weyn oo marba meel ba tagaya marka address waqtigaas loogu hagaajiyay jiray marka dhahay qof alaab soo qaadanaya ku soo sheegan kugu soo dirana asagoo u sii socota alaabtii ayuu qofkii meeshii ka cararaya si fiican markii muddo kadib uu joogo haddana wixii soo haddaan helay buu ku dhahay adigina walbahaar baa ku qaban waxaas dhigay waxay leedahay qofkii wixii siiyeen uu gaaray waxaa jiro kale qofka markuu product soo saaraya ama marka uu waxyaalo badan marka bulshada faa'iido lagu soo saarayo qofka ku dhiirigeliya adiga yaa kugu dhiirigeliya inaad productigan soo saarteed alxamdulillah aniga waxa igu dhiirigeliyay indhahan kala qaadan aqlaystay waxaan ku barbaaray oon waxbarasho ilaa haddana waan wadaa taas marka waxay igu dhiirigelisay maskaxdayda open mind markaad noqoto waalidkaaga inay ku garab taagan yihiin oo markastaba ay ku dhahayaan hore u soco waxaan rabaa inaan diyaariyo waad ka midho keelaysaa hore u soco marka akhriskaygii badnaa iyo anoo
dhal culumana ka soo jeeda xagga aqoonta kale hadii la dhahana ilaa PhD dad gaadhay aan ka soo jeedo marka taas waxay iga caawinaysaa environment waxbarasho family ah aan ku soo dhex barbaaray ina marka go ahead markastaba lagu la dhaho dhaho lagu sii dhiirigeliyo aad weyn waa hagaag waxaa kaloo jiro dhibaatooyin dadka isticmaalo saliidahan ama saliid kasta oo aad markaad ugu soo talagalaysid qofka inuu sameeyo dadka bini'aadanka maqaarkoodu isku mid maahan aad waxaa jiraan dad maqaarkoodii waxyaalo badan oo energy qabaan oo u adkeysan karin marka qof kasta ma isticmaali karaa saliidan saliidan qof kasta oo isticmaali karaa waxaa tusaale ah hadda markii dhakhtarka dawo kuu soo qoro qofna dhaqsay qabataa oo way ka tambadisaa qofna isagoo iska cunay iska cabo dawadii iskala socdaa macnaheedu waxaa waaye qofna isagaaba dhammaaday oo u baahan caawitaan jirkiisa inuu kor soo kiciyo qofna dee nafaqadiisa way dhisan tahay dawadan wuu iska difaaci karaa sidaas si lamida qofkii skinkiisa madaxa aan wax dhibaataa gaadhin caadin buu jirkiisa ula qabsanaya wax dhibaataa kama gaarayo qofkii laakiin dandruff leh ama dadka caajiska ku badan yahay oo kale ama dadka maqaarka boogboog oo kale waxa yara dareemaan yara kuleel aad weyn marka dee bacda 2 mar 3 mar caadi ula qabsanaya وحقاق طبعا dadka waxaan rajeynayaa inay ka faa'iideysanayaan saliidan oo waxyaalo badan u qabanaysa saliidan inta badan maadaama ay dadka ay aad uga faa'iideysanayaan ma jiraan dukaamaad geysid oo ay ka heli karaan dadku dukaano ila soo xiriiray way jiraan oo dhaheen wixii anagana waxaan sii saarano adigina aan ku iibino laakiin waqti xaadirkan inay gacanteeda uun ku socoto asbaabo awgeed oo insha Allah asbaabahaasna waa iska secret laakiin wixii inay xifdismaan insha Allah aad weyn waxa kaloo jira saliidan waxa tiri tinta iyo jajabaysa iyo maqaarka madaxa marka haduu nabarhay wax qabo waxyaalo kale daawo tahay ma jira nacam waxyaalaha daawo tahay markii hore waa soo koobay hadan si yara balaariyo tinta gurmaysa tin waxa jirta direct from skin toos uga baxayso oo moodid ina sidii beerta xididka la soo fujiyay oo salka kasoo fuqaysa tin waxaa jirta markii sashanlada loo geliyayba sidii steel wire camal qajajacdaa soo jajabaysa tin waxaa jirta ilaahay kuuma darnaadee markii qofku shaleynay soo usoo wada gadaal iskaga dhigdhigayso oo ina u kala baxbaxaynin dad waxaa jira madax xanuunka intuu ka batay kinin ku nool ah hada gabadh waxaa jirta ilaahay baan ku dhaartay maalintan saliidan bilaabay aabano dhul igu dambeysay dhahaysa adkeedan kula soo sheegareeni dad waxaa jira caajis markasta iska dareemay inay daalan yihiin hurdo la'aan inay yihiin tusaalaha dawil waxaa jira 3 sano ka hor turki ka soo samaystay timaha muddo kadib isla dhibaatadii uu u tagay unba ku bilaabmatay saliidan markuu helay isla markadii wuxuu dareemay hurdo uu soo hadlay wuxuu dhahay 10 sano ka hor hurdadan igu dambeysay mid kale wuxuu dhahay indhahayga waxa ka soo baxo dhahay fish ama xafajo waxa loo yaqaano indhahayga wuxuu dhahay qaleel zaid bay ahaayeen way olol jireen wixii dhanna waan ka caafimaaday habeen kasta ma isku shubaa kaas waxaan dhahay maya waa daawo waxaad badsato wax beelay leedahay sidii loogu talagalay u marso because sidii loogu talagalay markaan leeyahay dadka qaarkood inayna fahmin laga yaabo instructionka uu ku qoran yahay qaabkii ay ku qoran tahay marka wiilku wuxuu dhahay may ii ogolow dhaqsinaan caafimaad wad caafimaadaysa hadda marka wuxuu ii soo sheegay inay u shallamaysmayso tintii jajabaysay inuu istaagtay tintii gurmaysay inuu istaagtay bal wuxuu u soo gatay ka badan inuu ka helay marka wuxuu dhahay maxaa u qarsoonayd waxaan dhahay haduu ilaahay ugu talagalay waxaag company-ga soo saara productkan dabcan iskale company-ga saliida aan ahayn waxyaalo kale ma soo saaraa company-ga horta magaciisa hadii aan ka daba geeyo waxa la dhahaa mustabshirana waxa waa bishaaro waa erey dabcan saliida qofkii raadinaya magacaas uu ku raadinaya mustabshir magacaas buu ku raadin karaa ama de hair maxaan ku dhahaa natural hair oil kolba mid ku rabo isticmaali karaa marka mustabshira waa company Kenya ka diiwaan gashan sharciysan qaybtii caafimaadka laga soo diiwaan galiyay qaybtii caafimaadka saliida baaritaanka waa la geeyay certificate-kii approval-ka excellent alxamdulillah waa nimca ilaahay qaybta canshuurta Kenya everything complete company-ga loo yaro leeyahay qoto looma soo gali karo looma soo dhawan karo waa company full instruction-kiisa ay buuxaan waxaag dabcan qofkii marka hadda waliba Kenya gabdho adigoo kala aba ku sugan jecel inay productiyo soo saaraan ama soo saaraanba kambaniyada marka aad rabto wadankiina ka register gareysa caqabado ma kala kulatay
caqabado horta waxay ku xidhan tahay qof dee wadankii u dhashay waxna ku bartay luuqluuquu geli lahaa oo dhan baa dee u fudud qofna dee waa qof intuu soo galay ilaahayna heybadiisii oo rabo wixii inuu sameeyo laakiin meel u maro aan haysanin markaan waxaan dhihi karaa dee alxamdulilah dadkaygii dhan baa dee wada dowladdii wada maxaan ku dhahay aqoon-yahanadii jidkii loo mari lahaa wax caqabo oo aan fahansanaa laakiin dad badanoo waxaa jira ku dhahayaan halkaas haddaan tagno lacag badan baana laga qaadanayaa cabsi laakiin qofka hadduu sharciga fahmo soomaalina sharciga inaan fahno kastoo waxaad moodaa inaan ka gabanno oon qoto aadayno laakiin qofka hadduu wax fahansan yahay wax caqabo ku imanaysa ma laha bal isaga ayay dheef u tahay وهجاج طبعا وحنسوق عن لي جبدي برامج كأرمها بلشة تيفيجا RTN برامج كنا طبعا وحمرتكوا هيد عبد السلام وحنسوق عن جبدي أنا قصوكوا بين طبعا هذيك بردكتي كم كومنا دنك قويس كنا وعرفتيني يا وقت كلينا دنك قويس كأنا عاد وهالدونه إن شاء الله دنك قويس كهذا وحير كتابتي barnaamijyada qoysaska dadka wacyi gelisid maxaa kamid ah stresska tinta kamid ah sababta qofku markuu stress dareemo frustrationkiisa uu bato stresska waxaa keenaya dee labadii mataan ama lamaanihii oo isfahmi waaya barnaamijka qoyska dabcan waa baaxad weyn waa bad marka ninkiina dee stress badan uu dareemo ama gabadha stress dareento ay aragtadeedoo bidaar gamsho isagoo bidaar gal wuxuu dhihi dee maalintan ku guursanoo qurxona haddana adaaba tan iigu wacan way ballaarintahay marka arrintaas marka adigu waxa tintiiba markii ninkii u soo laabato mar dambe lama dhahayo gabadhii maalinta ku guursada tintii iga biibtay wahagaag waxa soo gaarnay gabagabadii barnaamijka saliidan adoo u kormaraysid dadka maxaad uga tegaysaa bulshada oo dardaaran iyo adoo soo koobaysid waxaan uga tegayaa saliida telefoonka laga helo ama channelkayga iskanita youtube-ka insha Allah kulli shaashadood u saari doontiin xamarna xarun laga helo ay leedahay intaas markaan ka soo tago qaabka online-ka aan ku gadaayo waxaas markaan ka soo tago uma sameeynin inaan faa'iido ama lacag inaan ka sameeyo waxaan u sameeyay inaan Ilaahay ugu dhawaado ummadda muslimiinta ama Soomaalida ay dhahaan alxamdulillah qofkaas wuxuu naga caawiyay caafimaadka xagaas oo markaa amaanay kugu tahay markaad wax baranaysid waxaad naftaada la jeceshahay walaalka la jeclo waa xadiisul qudsi waaye amaanadaas inaad ilaaliso qof kasto wax sameynaya oo Soomaaliya oo luqadan ku hadlay fahmaya ayuuna u sameeynin lacag ka hel ha u sameeyo qofkan walaalka waxa naftaada la jeceshahay la jeclow waxa kale marka gabagabadii aan ku soo gabagabeynaya aan u mahad celinaya waalidiinteedu aad igu soo tabcay waxbarashadeeda inaan guulo badan ka gaadho walaaladay markasta i garab taagnaa waalidiintii markasta duco ila taagnaa zaygayga ilaa khayr siiyo xubigayga oo isagu haduuna joogi lahayn soo saarkeeda ay aad u adkaan lahayd hadaba stuudiyaha isaga keenay waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa channelkayga inuu soo caanbaxo saliida inay dadka arkaan ay ka faa'iideystaan qofkii u soo bandhigay ummadda Aweys Abubakar xiisaha wararka Khadar Sheekh Maxamuud oo suuq geynteedii dadkii deebadarta gasho turki aadayba kulaha inay helaan waxa kale oo u mahad celinaya xiisaha wararkaygana inay ummadda aad u sii fahmaan iyadoo RTN oo dhex joogo maanta oo marti u ahay Ilaaha barakeeyo waxaan leeyahay Ilaahay waxaan ka rajeynayaa ummadda inuu ku anfaco anigana ducaan ka helo insha Allah وهجاج عاد بعض ما هتصنتهاي سيد قروح بدنا برامج كنا قلنا قيب قادة يبردكت جنا رجينيو بالشدة هنا كفاء إيدي سنيان إن سليدا ودن كتمها ينقف كيدو بدار ليها متين تاي كتجويسو أما مدى حمركا وحنونا يو داوو وباهي هاي سليدا واحد بدنا كان فعي دونتا إن برامج كارمها بالشدة RTN إنت سيان كسو جبجوينيا برامج كنا واحد اللي سعود سينيسي هنيجو أنسل حسين قرديرة ومرتنا يوا هيد عبد السلام وبرودكت كان قروحda badan maanta soo saartay anagoo isku duuban waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo alxamdulillah